waxaan isbedel ka dareemayaa aragga sida iftiin walac leh. Aragga ayaa isdhexgelaya. Waxaan moodayaa inuu shucaacay hormarayo. Wax yar kadibna waxaan dareemaa madax xanuun siyaado ah oo hal dhinac u badan. Iftiinka iyo shanqadhu way dhibayaan. Mararka qaar yalaalugo iyo wareer ayaan dareemayaa. Markaas waxaan jecelahay inaan meel madow oo mugdi ah oo shanqadhuna ku yar tahay jiibsado inta uu madax xanuunku iga tegayo. daawade haddii aad leedahay madax xanuunka leh astaamaha hore aan soo sheegnay waxa loo yaqaanaa dhanjaf ama goonjab hadba sida aad u taqaano. Afka qalaadna waxaa lagu yiraahdaa migraine. waa madax xanuun daran oo badanaa hal dhinac ah, inkastoo mararka qaarna dhinaca kale uu ku fidi karo. qofka waxa uu hayn karaa saacado ama maalmo, mararka qaarna qofku wax hawla kama qabsan karo. astaamaha lagu garto xanuunkan waxay maraan ilaa 4 marxaladood oo kala duwan. Marxaladda koowaad, maalmaha ka horeeya madax xanuunkan waxaa la dareemaa astaamo tilmaamaya inuu xanuunku kugu soo wajahan yahay, waxaana astaamahaas loo yaqaanaa prodrome. waxaa ka mid ah calool istaag, niyad jab ama kacsanaan, cunto cunis badan, muruqyada margiyada oo adkaada, oon badan oo ay la socoto kaadi badan. marxaladda labaad, daqiiqadaha ka horeeya madax xanuunkan waxaa indhaha laga dareemaa isbedel xagga aragga ah ama aragga oo daciifa. dad dhif ah ayaa dareemaa in wejiga, qoorta, garabka iyo gacanta oo hal dhinac ah uu dareenku ka tago. xaaladaas oo loo yaqaano hemiplegic migraine. marxaladda saddexaad, wax yar kadib madax xanuunkii ayaa la dareemaa. qofkana waxaa dhibaa iftiinka, shanqadha, wuxuuna dareemaa yalaaligo, matag, arag aan waadix ahayn iyo wareer. waxaad marxaladda ku jiri kartaa saacado kooban ama ilaa 3 maalin. marxaladda afraad, marka uu madax xanuunku kaa tago waxaad sii dareemi kartaa caajis badan, daal, murqo xanuun iyo iftiinka oo ku dhiba. waxay astaamahan sii socon karaan 24 saac ama ka yar. waxaa loo yaqaanaa postdrome. haddaba maxaa keena dhanjafka? ilaa iyo hadda si fiican looma fahansanaa waxa keena dhanjafka ama goonjabka iyo xiriirka hidda-raacnimo. waxaa la ogyahay keliya in xanuunkan ka dhasho isbedelo ku dhaca dhambalada maskaxda nooca loo yaqaano serotonin. laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo kiciya xanuunkan, kuwaasoo ay ka mid yihiin isbedelka hormoonada ee haweenka, waana sababta haweenka qaba dhanjafka uu ugu kaco xilliga caadada. sidoo kale daawooyinka uurka lagaga hortago ee hormoonka ka samaysan haweenka qaar ayay ku kicin karaan. waxyaabaha cuntada lagu daro, cunooyinka qasacdaha ku jira waxaa lagu daraa maadooyin u yaala dhadhanka macaanka oo ay ka mid yihiin aspartame iyo waxyaabaha lagu xafdiyo oo loo yaqaano MSG. labadaas waxyaabood cunooyinka ay ku jiraan dadka qaba xanuunkan waa ay ku kiciyaan. cabitaanada qaar sida khamriga iyo kafeega ayaa iyaguna kicin kara. walwalka, niyad jabka iyo diiqada ka dhalata goobaha shaqada ama guriga ayaa ka mid ah waxyaabaha kiciya xanuunkan. waxyaabaha dareemaha kiciya sida iftiinka xoogan, qaylada dheer, cadarada qaarkood ee aadka u udgoon iyo qiiqa sigaarka ayaa iyaguna ka mid ah waxyaabaha kicin kara. hurdo xumida iyo hurdo yarida, isbedelka cimilada iyo daawooyinka qaar waxay ka mid yihiin waxyaabaha kiciya xanuunka dhanjafka ama goonjabka. haddii qof ka mid ah qoyskaaga uu qabo xanuunkan, fursadda ama jaaniska uu kugu dhici karaa waa mid sarreeya. sidoo kale 90% in ka badan xanuunkani waxa uu saameeyaa dumarka. dumarku marka ay dhalmo gooyaan kuma dhaco xanuunkani. haddii aad garatid waxyaabaha kugu kiciya goonjabka kadibna aad ka fogaatid, waxay kugu caawinaysaa inuu xanuunku kaa tago ama uu kaa yaraado. waa muhiim inaad ka fogaataa waxyaabaha kiciya ee kor ku xusan haddii uu xanuunku joogto kugu yahay. dhanjafku ma laha daawo kaa tagsiinaysa xanuunka ama aad kaga bogsanaysid, laakiin waxaa jira daawooyin xanuunka yareeya ama lagaga hortago markaad dareento inuu ku soo hayo xanuunku. daawooyinkaas waxaa loo yaqaanaa triptans. sidoo kale waxaa jira daawooyin loo yaqaano ergots.
haddii uu xanuunku joogto kugu yahay marka ku qabtana 12 saacadood in ka badan uu ku haynayo daawooyinka madax xanuunkuna aanay waxba ku tareenin waxa lagu bilaabi karaa daawooyinka hortaga ama lagugula talin karaa qalab danab leh oo lagu xirto madaxa loona yaqaano TSNS. waad ku maadsantahay daawashada muuqaalka xiga waxaan kugu soo gudbinaynaa xanuunada lagu qaldo goonjabka ama dhanjabka.